wiilkan wuxuu ku nool yahay magaalo la yiraahdo Sundusfal oo ku nool yahay wadanka Sweden ku taala waxaan soo helay xogtiisa adresskiisa soo helay horta waa xaas hadda oo ma aha nin oo guurdoon ma ahan waa xaas ba ninkan laakiin weligay ma sameeyna reaction mana haddana ma rabo inaan reaction sameeyo laakiin dad badan waxay igu raadeen Xudayfa waxaad degantahay Sweden ninkan muxuu yahay ninka waa wacay marka waxaan rabaa inaan codkiisa hadda ay la dhageysato حذيفة جمعة وناكسن سودو adiga saaxiibada jimco wanaagsan ila jaa waa ka muuqata haybadii iyo shaqligii maalinta jimcaha ah meel fog ayaan aniga ugu imid inaan ku jimceysto xaafadan ay Soomaalidu ku badan tahay ee la yiraahdo Rinkeby ilaa 60 kilomitir jacayl aan idin qabo darteed soo marka la ku leenahay waxa jira adiga iyo saaxiibo badan oo soo kala sameeya aad iyo oo degan nawaaxiga magaalada caasimada oo ah Sweden xaafadan Soomaalidu badan ay degan tahay Rinkeby ku jimceysta taas hadii aan ka tagno بريهان waxaa jiray wiil aan aad uga masayray haye waxaad ku tilmaantay laakiin adiga qowsar ma ka masirta haye guursan doona aqaan ayaa tiri haye guursan doona aqaan sax weeyaan marka wiilkaas xogtiisa wax badan waad ka soo xuraastaan rajeynaya sababtoo ah qowsar ayaad ku tilmaantay horta maxaad qowsar ugu tilmaantay horta idaa jaa horta aad iyo aad horta u mahadsan tahay wiilkaas horta waa wiil fariid ah oo aad cajiib u ah weeyaan horta dadka qaarkood waxaan arkaa commentiyo badan oo la ii soo qoray oo dadku ay leeyihiin maxaa qowsar ugu tilmaamtay maxaa saan u tiri laakiin ereyga macnaha qowsar ayaa dadka ka maqan oo aysan aqoon badan aysan u lahayn qowsar waa ninka xanaaneeya ilaaliya daryeela xoolaha oo runtii waana ammaan qofka marka uu xoolo ilaaliyo fiican u yahay qowsar qof kasta ma noqon karo marka wiilkan Sweden ay ku nool yahay waxa uu sheegay ama uu sheegtay bartiisa YouTube-ka ku sheegtay inuu xoolahan asaga uu leeyahay inuu beertan asaga uu leeyahay inuu hawshan dhan asaga uu leeyahay waliba uu doonayo guurdoon uu yahay isla markaana uu doonayo gabar uu guursado uuna la yahay sidaas daraadeedna uu doonayo in la soo xiriiro qofkii uu ka helana uu xoolo badan uu ka bixin doono marka dalkan Sweden wax walba in dalkan oo kaliya ma ahan dalkan oo idil xogta qofka waa mid si dhakhsi loo ogaan karo meesha uu ku nool yahay qofka uu yahay waxa uu qabto yani shakhsiyada qofka horta ninkan odaga ah horta waa nin fariida markaan ku leeyahay horta wuxuu koobiyay haddii aad daawato TV fiiraha ama TV-ga afraad ee wadankan Sweden waxaa ka baxa barnaamij la yiraahdo Bonde Soccer Fru oo ah beeraleygu wuxuu doonayaa xaas ayuu doonayaa waa barnaamij caalami ah ama Farmer Seekers a Wife meelo badan oo ka baxaa waa barnaamij runtii barnaamijka horta koobiyay waana wax fiican qofkii inuu wax koobiyo ama aragti uu la yimaado marka taas kuma dhaliilaayo laakiin arinta meesha tala waxay tahay wiilkan ma yahay ninka beeraleyga ah ninka beerahan iska leh ninka iska leh maxaa la dhahay xoolahan ma yahay marka wiilkan wuxuu ku nool yahay magaalo la yiraahdo Sundusfal oo ku nool yahay wadanka Sweden ku taala waxaan soo helay xogtiisa adresskiisa soo helay horta waa xaas hadda oo ma aha nin oo guurdoon ma ahan waa xaas ba ninkan laakiin barnaamijkan waa barnaamij horta la wada jilay oo gabdhahana berrina arki doontaa barnaamijkii horena oo ku sheegay berrina waxa imaan doonto waa wada jilnay arinta barankii ahayd baa xataa waxa dib u fiirisaa barnaamijyo badan oo horay YouTube-ku soo galiyay dib u fiiro barankii kala duwan uu sameeyay uu leeyahay xarka ay ugu dhagay jaad ina cunaan raba Yemen aan ka imaado iyo lacag ma siinaysaa iyo gabdhuhu leeyahay telefoonkaaga ma macnaha barnaamijyo kala duwan horta oo horay uu sameeyay laakiin barnaamijkan dad badan aad u hadalhayeen sababtaas keentay in aan anigu aan ka hadlo weligay ma sameeyna reaction mana haddana ma rabo inaan reaction sameeyo laakiin dad badan waxay igu raadeen Xudayfa waxaad degantahay Sweden ninkan muxuu yahay ninka waa wacay marka waxaan rabaa inaan codkiisa hadda ay la dhageysato السلام عليكم السلام waa ku salaamay walaal marka hore qofkii la hadlaaya Cali Cabdullaahi Aweys oo degan magaalada Sundusfal Soomaha waa ku salaamay okay khadir waa nin la dhaw Cabdiraxmaan Xudayfi oo wariye ah seetahay fiican wallahi aad iyo aad niyo waxaan rabay programka aad sameysaan rabay inaan su'aal ka weydiiyo adiga Sweden ku nooshahay waa gartay marka programkan yahow dhab moo ka yahay mase dhalanteed wala علم الهلس قف كله
cali adaan kula hadlaya codkaaga waa aqaanaaye waxaan rabaa inaa barnaamijkan sida aan saxda eg wuxuu leeyahay markaan eri adiga calig ma tahay haddana wuxuu yidhi ma ihi marka waa nin noocaas ah waay marka difaacu galay marka ninkan ani ma rabo in hadda xogtiisa oo inaan hore usii galo laakiin inuusan disfaal degan yahay adreskuu degan yahay waa soo helay guriga xaaska uu qabo way la degan tahay isla adreska kula jirtaa nin kale oo aan filay inuu etoobiyaan yahay maqal isla adreska kula jiro laakiin si walba ha ahaato adiga ma isleedahay gabdho soomaaliyeed oo xilligan jiro oo qurbaha joogo ayaa xoolo dhaqi doono oo ilaalin doono oo qowsaaro noqon doono oo guriga macnaha noloshaas adag ku noolaan kara ma isleedahay marka laga soo tago horta runnimada sheekadan saad usoo xuraansatay ud raacday usoo ogaatay dad badan waxay iga weydiinayeen ninkan ma hanti kaluu leeyahay oo lo-daan aan ahayn marka waxaan isweydiiyey waxaa la gabdhaha qaar Canada ka yimaadeen gabdhaha qaar waxay ka yimaadeen Mareykanka yani safarkaas dheerka ah beentood waa dhammaantood Sweden wada Sweden gabdhaha wada degan yihiin sheekadan waa sheeko la wada og yahay oo la wada jila waay programkan ayaa laga koobiyey isla markaana si barnaamijka dadka loo soo jiito kaliyan ku imaaday iyo macnaha indhaha dadka la soo jiito laakiin gabdho badan oo Soomaaliyeed waxaa jira ayaga laftigooda dib ka ogaada sheekadan oo ama falcelin ka sameeyay ama aad u daneyn la sheekadan aad iyo aad laakiin waxaa ogaataa marka muuqaalo la sameynayo dad badan hadda waxay sameeyaan waa isfurna iyo waa isqabnaa iyo youtube-ka beryahan wuxuu noqday mogta views raadisoo noqday ma fahamtaade youtube-ka marka dad badan hadda gogoshoodii ka hadlaya marka ninkan hadda gabdhahan guurdoona ama nahayba taagan yihiinba macnaha weli wanaagaa meesha ka muuqdo ma fahmin weligeedana jirta gabdho herin ah herin waxaa la oran jiray gabdho inta baxaan ragdoon ah raggi rabidoon ah gabdho dhihi jiray waa xilliyadii hore laakiin hadda ma jirto laakiin dhaqankan laftigeeda sida Soomaalida dadka Soomaaliga joogo kale ay u arki karaan in qof wiil dhalinyaro ah qurbaha jooga gabdho ay u soo safreen lo aan ilaalinaya yiri run ay u qaadan karaan si fiican run ay u qaadan karaan sidaas ku qasabta adiga inaad soo ogaatid marka inaad soo ogaado waa raadiyay adreskiisa ogaaday ninkana ogaaday shaqadiisa ogaaday wixiisa soo ogaaday warbixintiisa hore Sweden horta wax qarsoon ma jiro mar walbo qof kasta aniga Cabdiraxmaan ah maanta ben idin sheegi karo ma dhigi karo hadda maqaayadan aan dhex joogno anaa iskala hadii ay yiraahdo hore laga soo ogaana marka qof darbigan yaqaan hore markaas wuxuu leeyahay darbiga la ilig Soomaa orinka bi ku yeel Soomaa aad iyo aad marka idaaja horta aad u maasan tahay horta arrinkaas ninkaasna dad badan oo waxaan arkay ka falceliyo oo yiri maxaa qowsar ugu tilmaamtay sababtaas aan qowsar ugu tilmaamay labo barnaamijkan oo ka keenay tan saddexaad waa arki doontaan berito falcelinta ka imaan doonta barnaamijka dhamaadkiisa waxa ay ku dambeyn doonto marka waan ka xumaha wiilkan inaan raadiyey waan isu sheego yiri ninkaasaan ahay Cabdiraxmaan Xudayfi wariyaan ahay hebel ma tahay haa igu yiri barnaamijka ma dhaba mas waa dhalanteed kadib wuxuu yiri ninka aad raadinaysa ma ihiba marka codka marka la darabti waa kugu soo celin karaa marka idaaja waa sheeko aad u qosol badan waa sheeko aad u qosol badan waay waxa og tahay youtube-leyda inta badan sameeyaan hadda waxaa arkaysay yar oo youtube la ah oo la yiraahdo Asad Xaaji waa aragtay maalin walba fikrad cusub oo kalena laakiin fikradiisa waa la arkayaa inuu yahay barnaamijyo la jilay ay yihiin gabar inta soo istaagto wiilal saf oo soo galaan ay leeyihiin talantigiisa asaga ka soo go'ay wax asiga abuurtay wax oo asiga abuurtay waay marka ninkan wuxuu asiga abuurtay waay marka dadka marka waxaan rabaa inaan raado ninkan horta waa youtuber maadaama youtuber uu yahay programkan asiga uu leeyahay inaan loo qaadanin horta wax run ah oo ay yihiin wax iska dhalanteeda Sweden ma degana loo leeyahay Soomaaliya way ka shaqeeyaan laakiin loo leeyahay qof loo leh 200 oo loo ma jirto ma jirto hore u ogaan lahayn way jiraan dad badan oo shirkado sameeyana jiraan dad badan oo ganacsi badan sameeyana dad badan oo guulo gaarayna jiraan dad badan oo maamulo shirkado boqolaal ka shaqeeyana jiraan laakiin ninkan shirkada uu u shaqeeyo dadkan beerahan iyo xoolahan uu ka shaqeeyo ninkan maadaama uu ka shaqeeyo fursada u helo marka inuu camera la dhex galo oo video ka soo duubo marka wuxuu daawada hadana barnaamijkan oo daawada oo la yiraahdo Bond Sugar Fruit waa fiis fiican muuqaalo fiican oo ka sugeynaa oo dhanka geela ku saabsan muuqaalo fiican oo ka sugeynaa marka dawladda cali nin fariida tahay waa ka xumahay markaan ku soo wacay inaad telefoonka aad igu inkirtay inaad tiraahdo ma ihi aniga qofkaas
marka hore u socon ku leeyahay laakiin gabdhaha Soomaaliyeed waxaan ka rajeynayaa inaad ixtiraamto oo aad tixgeliso oo aad maxaa la dhahay aadan been laguma suuq tago waa wax aad u xun waa been laakiin nin talent la tahay nin fiican tahay nin shaqaysta tahay nin dhalinyaro waliba tahay marka aniga marna uma ogoli in gabdho lagu xadgudbo wiil xataa lagu xadgudbo uma ogoli marka aad u maasantahay cali waa maasantahay xogta sida fiican ee aad u raacday aad u soo ogaatay anigu dad aan ka mid ahay hadda masayrka waan naday iyo xogtii iyo dadkii iyo wixii aslahayn nin 200 oo lo leh horta kol hore ninkan saaxiibka idaaja dhowr mar horta ku dhaga hadlay ninkan waa nin dhowr iyo 10 mashruuc kala duwan wado mar wuxuu ku leeyahay waan guura mar wuxuu ku leeyahay waa guursana marba xaaladu oo yiraahdaa marka horta ma ka maseerto horta ninkan si fiican 200 oo lo ah oo Sweden la degan nin haysta u dhaqdo uu dhahay 100 haddana saf loo soo galay soo safray nin dhahay oo 10 anaa kala xolanay dhahay adina waxaan raadinayay lo ma keenta ari ma keenta dooro ma samaysa adina waxa leedahay mid kaliya laada ku soo safarto marka mooradii aan ku suuq tigi ayaa raadinayaan aad marka waxaan oran lahaa idaaja adigoo horta aad iyo aad u mahadsan barnaamijkii kol hore aan ku sheegay ahaa saddexda xaraf oo aan odayga adeerkay ka soo koobiyay waxay ahayd guurso doonaan aqaan oo go'i doonaan aqaan oo guuri doonaan aqaana marka qalad yaraan kol hore sameeyay oo aan arrintii go'i doono aan ku fasiray marka guursan doonaan aqaan macnaheedu waxa uu yiri waa ninka raba inuu guursado markuu go'aan qaato inuu guursado qof kasta way la qurux badan tahay ama rag ahaada ama dumaraada gabadha xataa nin kasto ay aragto markay guur damacday gabadhu nin kasto hadorba ha fool xumaado wax horba aada jud maajida aada wala qurxoonaana gabadhuna sidoo kale wiilkuna sidoo kale gabadh fool xun ahaato noocay doonta ahaato wala qurxoon waa marka qofkaas guur diyaar u yahay ninka wuxuu leeyahay adeerkay guurso doonaan aqaan guuri doonaan aqaan wuxuu ku tilmaamay ninka raba inuu xaafadda u degan yahay ka guuro eedo u yeela xaafadan noocan waay qaabkan waay noloshaan ma ahan meeshaana nacay san macnaha eed iyo marmarsi aan jirin oo xaafadda uu joogo oo u sameeyaa macnaha kaasi xaafaddu raba inuu ka guuro go'i doonaan aqaana kol hore waxaan ku fasiray ninka dhiman doono inuu ula jeedo laakiin ulama jeedine bilcagsigeeda ahayd guursan doonaan aqaana ninka marka uu yidhaahdo gabar kasta markii la yidhahdo hablaay bal kawar maxay tahay wax jira ma ahan macnaha inuu guursado ma rabo marka wuxuu leeyahay ninkaas wuxuu ku gaboobi doonaa soo u joogo oo gaboobi doonaa oo ku dhiman doonaa asoon guursan ula jeeda macnaha go'i doonaan aqaana taas ula jeeda marka yani ma tarmaayo qofkaas qof aan guursan doonin waa macnaha go'i doona ula jeeda marka idaaja aad u maasan tahay inaa barnaamijkan aad igu casuuntay waana kaaga mahad celinayaa waa maasantahay xudayfi adna xogta fiican ee aadna siisay warbixino badan oo xogyaashan ku saabsan su'aalo dadku wayna soo weydiin karaan saas ayaan u raaci doonaa aad iyo aad qofna been ma sheegi karo qof kasta waxaa fiican in noloshiisa runta uu ka sheego aniga qofna si gaar ahi weerar uguma ihi taas horta waa ka cudur daaranaya dhalinyaro badan dad badan oo horumar sameeyana jiraan waa inaan loogu hambaliyaa laakiin tani sax ma ahayn marka aad u mahadsantihiin